dhalinyarada inta badan waxa ugu culus ku dhaca waxa kamid ah inuu noqdo imacada ma taqaan Soomaalidu waxay tiraahdaa dameeridaan raacda ma taqaan dhaan iska socda dhaanku waa dadkii biyaha doonanayay ayaa dameera ku soo baxaa iska daba galaa ma oga meesha ku socdaan laakiin way raacaan inaad cid walba waxay rabto iska raacda sax ma waa inaad xaqaa'iqda ogaataa tacaabirta qosol kale laga sheego ninkii Gandhi la oran jiray baan idin sheegayaa Gandhi waa maqashay Soomaa India ninkii xornimadeeda ragii wax ka raadcaynaya Gandhi wuxuu ahaa nin dhaqankiisa ku adag laba go' yar yar oo cadcad buu xidhan jiray oo go'a hoose inta la duuduubo baa dabada la soo geliya xagga dambe dabagelis buu lahaa xataa waxay yidhaahdaan markuu galbeedka Ingiriiska u imanaya shirarka la gelayay ribuu soo kaxaysan jiray ridiisa caanaheedu maali jiray wuxuudaba ma cuni jirin Gandhi baa yimi bay yidhaahdeen Gandhi baa markaa oday Ingiriis wuxuu ku yidhi what is this isagoo sheegaya maradan dabada ugu jirta ee dabageliska Gandhi waxay yidhaahdaan kii gaalka ahaa isagana intuu taayigiisii qabtay ayuu ku yidhi what is this gaalkii wuxuu yidhi baa la yidhi this is necktie يعني واباك لو انت لو خدو necktie لا and this is back tie buu yidhi Gandhi يعني Gandhi wuxuu tilmaamaya idina halkan baa ku xidhan anna dabada ku xidhay buu leeyahay waa mara uun labadeenu waa qofba jirkiisu meel ka soo يعني wuxuu tilmaamaya necktie inaanu ka fiicnayn back tie-ga macnaheedu maxay tahay culture-ku ha qaadanin in laga culture qurux badan yahay inaad qof Soomaali oo dhaqan Soomaaliyeed leedahay waa wax lagu faamay it's your back tie ma fahamteen bayla ha ka faanin nima tahay ha ka faanin qof muslim oo Soomaaliyeed baa tahay oo culture-kiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa